haddii aad rabtid inaad guulaysatid waxyaabaha lagu sheegay ama aad maqashay ama mar walba lagugu soo celiyo waxaa ka mid ah waa inaad dadaashaa, waa inaad wax samaysaa, waa inaad shaqaysaa, waa inaad aqoon yeelataa. laakiin haddii waxyaabahaas oo dhan ay kugu bateen, hal arrin aan kuu sheego oo guusha noocyadeeda kala duwan oo dhan ay ku xidhantahay kaaga filnaan kara. xataa haddii inkastoo dee shaqo badan loo baahan yahay, shaqo adag loo baahan yahay, dadaal loo baahan yahay, haddana xataa lazy haddaad tahay oo qof dhintay aad naftaada isu haystid marka loo eego dadka dadaalaya adduunyada, haddaad islama bardhig sidoo kale arrintan qofka noocaas haddaad tahay xataa way ku anfacaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala ku xirno, istikfaarta badi. istikfaarta waa sirta guusha. haddaad awlaad badan rabtid, haddaad hanti badan rabtid, haddaad rabtid dad kaa horeeya durbe inaad gaartid, istikfaarta ku dadaal. istikfaarta cajiib wey, wayna fududahay. kaagama baahno aqoon tiro badan, kaagama baahno juhdi kale, kaagama baahno subax kasta inaad ka lahdid, kaagama baahno inaad wax badan, kaagama baahno waxaas oo dhan. astaqfirullah 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 ku dadaal. carabkaaga ha ka qoyanaato mar waliba. waxyaabaha cajiibka ah oo istikfaarta aniga sida gaarka oo aadka aan ugu jeclahay waxaa ka mid ah, waxaan dareemaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu furfuro iina fududeeyo intaas oo sheeya. mar waliba oo iyada aan ku dadaalo waxaan dareemaa in futuuxaad ay dhacaan. laakiin mararka qaarkood bilaadana la iska mashquulo mashaariicdii iyo safaro iyo aad uga mashquulo kale, waxa weeye mashquulkaasi mar alla markaan galo waxaan ogaanayaa mashaariicdu inay sii adkaanayso, wax ii fududaan jiro inayna sidii hore ahayn. waxaan ogaanayaa marka gaabisku inuu aniga dhankeyga yahay. markaasaan gadaal isugu noqdaa, markaasaan hadduu istikfaarti badiyaa, wardiga badiyaa, qur-aankii akhriya, kitaabkii isoo qabo, halkaas wada sameeya. marka haddii cibaadooyinkii kale oo dhan xataa aadan samayn karin oo ay kuga adag yihiin oo caajisoole aad tahay, xataa istikfaartaas carabkaada ha ka qoyanaato. waxaan hubaa in wax badan ay kugu fududaan doonaan. ilaahay subxaana watacaalana waxba lama aha sidiisaba inuu maanta ku siiyo wax waliba oo aad niyadaada ku haysid. laakiin dee adduunya lagu keenay, caqli baa lagu yeelay, xoog baa lagu yeelay, lixlixaad baa lagu siiyey. waa in lagula xisaabtamaa maxaa ka qabatay. adiguna waxaad samaysaa xoogaa yar ilaahay u dhowow, wax yar waxaad isku daydaa inaad isaga tustid inaad tahay addoonkiisa u baahan isaga, mar walibana gacanta u taagaya. astaqfirullah astaqfirullah, yaa rabbi acinni, yaa rabbi acinni, ilaahu icaawi, ilaahu icaawi, ilaahu icaawi. waxyaabaha aadan ka xishoonaynin oo aadka ugu baahanta waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala in umuurahaada hoose a u sheegtid, si hoose ula hadal. wakaanaka aad arkay siduu ku ag fadhiya, yaa rab ilaahu waa igu taagantay ii fudude, ilaahiyow arrimahana igu dhagan ii fudude, ilaahu imtixaankan, ilaahu ciyaalkan, ilaahu xaaska, ilaahu weydiiso. kulamaa isaga aad isku dhajisid, kulamaa guushu ay kuu fududaato. wax walibaa lagu furaya. wixii adkaa kuwii kaa sii jeeday oo dhana la soo jeedinaya, kuwii wax kasta kuu diidanaa oo maalinta waxaa arkaysaa iyagoo intay kuu yimaadaan ku dhahaya waniba arrintaasaan rabnay inaad muxuu ah waaba ku raadinayna maalmahanoo arrimahaas inoo qabo. waa nimankii aad adigu ka niijibsano isdhahaysa kuwan xaasisanaa, waxbaa loo soo sheegaya, dhabarkaa laga soo dharbaaxaya. ilaahay subxaanahu watacaala baari weeye. cidda liidata ee aanan wixii ugu yaraa ee la siiye xataa la kulmila inaga weeye. ilaahay subxana watacaala cibaadada ha inagu garab galo. fadlan axibaa'i waxaad ku dadaashaan istikfaarta. astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullahi alcadiim alladii laa ilaaha illa. haddaad dheerayn kartid, laakiin haddaad caajisoola tahay xataa astaqfirullah astaqfirullah. bajaaj intaad saaran tahay, xafiiska intaad joogto, inta musqusha maxaan rabaa intaad jikada ku jirtid, waxaasoo dhan wada daldal maantoona. ilaahay subxaana watacaala ha inaga cafiyo dunuubteena. waxa meesha ina dhiga waa dembigeenna. guul ayaa